madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa ku sugan dalka Masar halkaas oo uu tagay booqasho rasmi oo 48 saacadood qaadanaysa kadib markii uu martiqaad ka helay dhagiisa dalka Masar Cabdifataax al-Siisi. booqashadan ayaa iyadu astaan xoojinaysa xiriirka labada geesood ee u dhaxeeya labada dal. geesta kale madaxweyne Geele ayaa kolkii uu halkaas gaaray soo dhaweyn diiran kala kulmay bulshada dalka Masar waxaana uu kulan la qaatay dhagiisa dalka Masar Cabdifataax al-Siisi. intii kulankaasi uu socday labada hogaamiye isla soo qaaday qabanqaabo dhowr oo ku wajahan dhowr waxyaabood oo cusub oo ku aadan iskaashiga iyo hanaanka midaysan oo ay ka midaysan yihiin faa'iido ugu jirto labada dal ee saaxiibka iyo walaalka ah. xiriirka taariikhiga u dhaxeeya labada qaran iyo ka mid ahaanshahooda midaysan ee waxyaabaha kale gaadiidka iyo weliba siyaasadda dhaqaalaha iyo heerka degmo ayaa mid xoojinaya xiriirka taariikhiga u dhaxeeya labada dal. midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta ayaa qabanqaabada iskaashiga Islaamka suuqa barwaaqa sooranka Comesa ayaa macadyada heerka degmo iyo heerka qaran weliba heerka caalamka oo mid ay ka midaysan yihiin Jamhuuriyadda Djibouti iyo Jamhuuriyadda dalka Masar. kulankaasi u dhaxeeya labada hogaamiye ayaa kadib waxaa xigtay wada hadallo dhex martay wafuudda labada dal waxaana intaasi xigtay hergelin kala duwan oo ku aadan saxayo heshiis laba geesood oo ku wajahan waxyaabaha sida ganacsiga iyo waxbarashada iyo marsooyinka. shir saxaafadeed uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo dhagiisa dalka Masar Cabdifataax al-Siisi ayaa lagu soo afmeeray maalinkii koowaad ee booqashada rasmiga ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku tagay dalka Masar. waxaana maanta Salaaso oo maalinkii labaad ee booqashada madaxweyne Geele ayaa waxa uu la kulmi doonaa bulshada maalqabeennada dalka Masar waxaana lagu wacyigelin doonaa bulshada maalqabeennada dalka Masar fursadaha maalgashi ka jira Jamhuuriyadda Djibouti iyo fursadaha uu dalkeenu bixiyo iyadoo dalkeenu uu xubin ka yahay dib u qaabeynta iyo weydaarsiga dhaqaale ee suuqa ganacsiga adduunka. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa fursadan uga faa'iideysan doona si uu uga wargeliyo ragga iyo haweenka maalqabeennada dalka Masar kaabayaasha heerka sare ee horumarinada Djibouti sida marsooyinka iyo weliba warisgaarsiinta. geesta kale sida cad madaxweynaha jamhuuriyadda inta booqashada rasmiga dalka Masar uu ku sugan yahay ayaa waxa uu la kulmi doonaa bulshada reer Djibouti ee dalkaasi Masar ku sugan. waxaana booqashada madaxweynaha ku heliya wafdi ka kooban wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha Mustafa Maxamed Maxamuud iyo weliba gudoomiyaha marsooyinka iyo goobaha ka caagan Abubakar Cumar Xadi